maamulka iyo taliska ciidanka ee gobolka Mudug ee Puntland waxay sheegeen in qaraxa ka dhacay xalayto magaalada Gaalkacyo inay ku dhinteen 2 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen 8 qof oo kale. Qaraxa oo ahaa nooca meelaha fog laga hago ayaa ka dhacay bartamaha magaalada, waxaana dadkii ku dhintay la geeyay isbitaalka GMC ee dhagacda ee magaalada Gaalkacyo. gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdiladiif Sanyare iyo taliyaha qaybta booliska Muumin Cabdi Shire ayaa faahfaahin ka bixiyay khasaaraha qaraxa iyo xogta la xiriirta. maanta oo ay taariikhdu tahay 23 bishii koowaad waxaan rabnaa inaan ka warbixino dhacdadii xalay 6 iyo bar maqribnimo ka dhacday magaalada Gaalkacyo oo ku saabsaneyd qaraxa wuxuu ka dhacay iskuulka Cumar Samantar darbigiisu meeshu ka bilowdo markii laga yimaado dhinaca koonfureed halkaas oo la dhigay qarax wadada dhinaceeda kadibna waxaa halkaas marayay gaari ay saarayeen ciidanka roondada ee magaalada ka shaqeeya markuu la sinaana qof baxsaday saan malaynayno baa wuxuu u taabtay remote halkaa waxaa ka dhacay khasaare inta la filayay ka yar markii loo eego qaraxa weynaantiisa. khasaaraha qaraxa ka dhashay waxa weeye 2 qof oo midna uu yahay shacab midna yahay askartii ayaa ku dhimatay 8 ruux oo isugu jira askar iyo dadka shacabkaana waa dhaawac fudud. waxaan ballan qaadan inaan ka jawaabno dadkii falka geystay aanu soo qabanno sidii hore kuwii hore aanu soo qabanayna aanu soo qaban doono. waxaan mar labaad uga digaynaa in aysan Gaalkacyo moodin sidii hore ay wax u sameyn jireen inaysan u sameyn doonin, waxay u suurtagali jireen inaysan u suurtagali doonin. waanu ka daba tegi doonaa hawshaas dadweynuhuna sidaa ku kalsoonaadaan. Allah u naxariisto labadii ruux oo ku geeriyootay inta dhaawacaan Allah caafiyo. waxaan rajaynaynaa inta dhaawac inay ka kacayaan oo xaaladoodu waa fiican yihiin, aad iyo aad bay u fiican yihiin xaaladoodu. waana la daaweeyay badankoodii. rajo badan baan ka qabnaa inay kulligood ka kacayaan oo ay fiicnaanayaan. ilaahay waxaan uga rajaynayaa inuu caafiyo isaga caafimaadka iska leh. runtii qaraxan wax hadda aad u weyn oo aad loo bumbuuniyo oo ma aha. waa jaahwareerin waxay sameeyaan waxaan argagixisada ahi waa joognaa meelaha waa ka dhowna inay sameeyaan wuxuu jaahwareerin sameeyaan. waa soo qabanaynaa waa hayna riboodkooda inay qaraxa yari magaalada ku jiro wax naga qarsoona ma ahayn. tiimka hayana waa ognahay oo tiim naga qarsoomaya ma aha. sidii kuwa hore aan u soo qabanay baan u soo qabanaynaa haddii alla idmo. gudoomiyaha gobolka Mudug waxa uu sheegay in ay ku raad joogaan kooxihii soo maleegay falka qaraxa ahaa ee ka dhacay bartamaha magaalada Gaalkacyo. dhanka kale ciidamada booliska ayaa Gaalkacyo ku soo bandhigay walxaha qarxa oo ay soo qabteen ciidamadu iyo waliba dad loo soo qabtay sida uu sheegay taliyaha qaybta booliska ee gobolka Mudug Muumin Cabdi Shire. waxa kaloo iyana aanu ka warbixinaynaa shalay mataqaanaa 4 galabnimo waxay ciidanka booliisku gacanta ku dhigeen qaraxyo isugu jira kuwa diyaarsan iyo kuwa hadda la rabay in la diyaariyo oo ummadda lagu dhibo. waxaan sidoo kale daba joognaa ciddii dhigtay qaraxaas meeshaas ku kaydisay. insha Allah tacaala iyagana gacanta ku soo dhigi doonaa kuwana awal baan horey u haynay kulligood kiisaskaas. ciidamada qaybahooda kala duwan ee Puntland kuna sugan gobolka Mudug ayaa xoojiyay hawlgallada lagu xaqiijinayo ammaanka iyadoona soo qabtay tiro dhowr jeer ah qaraxyo iyo sidoo kale dadka watay. maamulka gobolka iyo taliska qaybta booliska waxay sheegeen in hawlgalladan ay si wadi doonaan ayna xaqiijinayaan ammaanka guud ee gobolka gaar ahaan magaalada Gaalkacyo. Cawil Cali, warbaahinta Goobjoog, Gaalkacyo.